عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا مeel kasta joogtaan waxaad ku soo dhawaataan falanqeyn kooban oo ka sameyn doono kulanka xiisaha leh guddo soo gabagaboobay ee Arsenal iyo waliba kooxda kale ee kooxda kubadda cagta FC Portsmouth طبعا kooxda kubadda cagta Arsenal martii ay ahayd guriga FC Portsmouth ayaa lagu ciyaarayay waxay ku soo gashay shaxa Arsenal marka la eego 5-4 marka la fiiriyo waraqa ahaan laakiin marka aad aragtid garoonka gudihiisa waxay ahaayeen 3-4 marka laga hadlayo iyadoona difaacida ama duwaa iyo tareegaba ay ahaayeen kuwa ka ciyaaraya qadka dhexe isla markaana caawinaya kuwa qadka dhexe sidoo kale waxay ahaayeen markaasi door weyn kuwa ku lahaa goolasha gaar ahaan Colasini oo isagu dabcan ciyaar fiican ciyaaray marka laga hadlayo guud ahaan intaan u guda galin Leno ayaa goosha ugu jiray Bellerin Mustafi Sodregid Holden iyo waliba Colasini ayaa iyagu waxay ahaayeen difaaca Alex Omyobe iyo waliba Lucas Torreira Chaka Mkhitaryan iyo Eric Aubameyang ayaa isagu Eric Aubameyang ayaa weerarka u joogay marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta Arsenal waxay ciyaartay marka laga hadlayo gool muhiim ah ay gaartay laakiin waxaan rabaa dhowr arin inaan ka hadlo marka laga hadlayo qaabkay u ciyaartay runtii shaqo adag bay qabtay marka laga fiiriyo xidigaha kooxda kubadda cagta laakiin waxaa jiray dhowr arin oo marka la fiiriyo qaladaadka gaar ahaan xidigaha qaarkood ay galayeen marka la fiiriyo laakiin waxa xusid mudan arin dabcan dadka soo jiidata anay ahaan soo jiidato waxa kamid ah xidiga qadka dhexe oo Torreira dabcan runtii lagu naanayso kantiga madow sida aqliyadiisa iyo sida uu kubadda inta u qabsado u baasayo isla markaana waxaa jirtay qaybtii hore in kubada badan oo lagu soo qaadi lahaa Arsenal uu joojiyay marka waxa dareemaysaa xidig qiimo leh Arsenal mudooyinkan maysan soo helin Gilbert iyo maaragtay xidiga kale Patrick Vieira ay bixin ayaa xidig burburiye oo Torreira oo kala Arsenal ay hesho dabcan waxa waa runtii arin aan la heli karin waxay ahayd runtii waan wax u fiican marka la eego kooxda kubadda cagta ee Arsenal qaybtii hore ciyaarta gool iyo waxba iyadoo ku hogaamin rabtay gabagabadii laga barbaray hal ayayna qaybtii hore ku kala nasteen laakiin qaybta qadka dhexe sida u maamulay waxa dareemaysaa si qurux badan si cajiiba si la dhigi karo wax badan oo u fiican ayuu ahaa sidoo kale waxa jirtay marka la eego mas'uuliyad darro qaar kamid ah xidiga in ay sameynayaan xidigaha gaar ahaan Omyobe oo isagu kubada badan dayacay ama kubada baasid laha ama meelo badan lahaayeen uusan sameyn sidoo kale waxa yaab lahayd in Ramsey oo fadhiyo Omyobe uu ciyaaro xidiga badan laakiin Arsenal maanta waxa dabcan si weyn loo dareemay maqnaanshaha Lacazette oo isagu waa xidig cajiib isla markaana ku fiican marka la eego sida uu garoonka u wareego isla markaana baaska u qaadanayo guud ahaan qaabka uu kubaddu isagu u maaragtay u qabsaday goolalintiisa guud ahaan marka la fiiriyo Aubameyang ciyaar tiila rabay muusan ciyaarin laakiin gool ku dhaliyay ayaa maaragtay u shafeecaya geesta kale Mkhitaryan dabcan wax badan oo maanta la sheegi karo muusan soo bandhigin laakiin ninka ciyaarta aad iyo aad u qiimo badneed waxay ahayd ninka soo bandhigo Torreira qaybta dambe waxyaabaha la yaab kale ciyaarta ka dhacay waxa kamid ah Torreira ayaa la bedelay Guendouzi ayaa la keenay xidigaas waa xidig mustaqbalka Guendouzi waa la ogyahay laakiin waa da'yar yahay laakiin Torreira yani xidig cajiiba oo sidaas oo kala ah in aad badashid yani waa dhibaatonaysa waxa dareemaysa marka Arsenal waxa lagu helay markaasi wuxuu noqday markii la siibay kadib qadka dhexe Arsenal in uu isku dhaxyaac nidaam la'aan sida daradeed waxay keentay marka in weerarada kooxda kubadda cagta Portsmouth ay bataan sida daradeed waxay keentay xitaa in fursado lagu barbareyn karay sida daradeed marka qadaadka u gala Torreira ayaa kamid ah runtii marka la eego kooxda kubadda cagta Arsenal iyo waliba xidigaheeda ciyaar shaqo adag bay qabteen guushana waxay u fiican tahay marka la eego in kaalmaha hore ay u soo dhawaado sida daradeed waxay u baahan tahay Arsenal in ay joogtayso bandhigeeda noocyadan oo kala ah si ay meel wanaagsan u gaarto hadii kale waxay noqon doontaa mid ay dhibaatooto guud ahaan xubinteena falanqaynta Arsenal inta ayaan ku koobnaa insha Allah